Assalaamu calaykum. Baro 6 qaab oo aad kula macaamilayso dadka aadan ka helin. Way fududahay in aad maalin kasta la kulanto dad aadan ka helin dabeecadahooda ama habdhaqankooda, waayo dadka dunida jooga isku dabeecad maaha. Deep Patel oo ah qoraa caan ah ayaa qoray buug ciwaankiisu yahay 11 mabda' ee guusha, ayaa yiri dadka inta badan guuleysta kama fogaadaan dadka aysan ka helin. Taa beddelkeeda sida ay yihiin ayay kula macaamilaan. Macquul maahan qof kastoo isfahmi weysaan ama aad ka heli weyso in aad goyso ama aad ku nacdo dabeecadihiisa awgeed. Taa beddelkeeda waxaa kuu fudud in aad kula dhaqanto dabeecadda qofkaas. Haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 6 qaab oo aad kula dhaqmi karto dadka aadan ka helin. 1. Marka hore aqbal in aadan qof walba fahmi karin. Waa muhiim in aad tan iska dhaadhiciso. Loolama jeedo in aad adiga tahay qof xun ama ay dadka kale xun yihiin. Haddii aad iska dhaadhiciso tan, waxaad ogaatay in qalad jiro ama macquul tahay in ay mar walba dhici karto isfaham waa. Taa waxaa kuu sahlaysaa in aad la timaado xal ama aad isku diyaariso la macaamilka qof walba adigoo og in kala duwanaansho dabeecad ay jirto. 2. Dadka aadan ka helin waxa ay sheegayaan ama ay ku hadlayaan kaliya ka eeg dhanka wanaagsan. Dr. Sassin Krauss oo ah khabiir ku takhasustay cilmi nafsiga ayaa waxay ku talinaysaa in uu qofku isku dayo in uu fahmo habdhaqanka kala duwanaanshaha ee dadka kale. Dadka aadan ka helin habdhaqankooda, haddii hadal kastoo ay dhahaan aad ka fiiriso kaliya dhanka aanan wanaagsanayn, taa waxay kugu sii abuuraysaa nacayb. Taa beddelkeeda waa in aad ka fiirisaa dhanka wanaagsan oo keliya. 3. Mar walba ogow dareenkaaga. Qoraaga Patel waxa uu leeyahay ha u ogolaan dareenkaaga in uu raaco dadka, haddii kale waali ayay kugu hagi doonaan. In aad mar walba xanaaqaaga xakamayso waa muhiim. Haddii uu qof isku dayo in uu ku carageliyo mar walba, isku day in aad caadi ahaato oo xakamayso dareenkaaga. 4. U muuji dareenkaaga si deggan. Had iyo jeer sida aan u wada xiriirno waxay ka muhiimsan tahay sida aan u hadalno. Haddii uu qof si joogto ah kuu carageliyo oo ay meel xun gaarto, waa muhiim in aad wax ka dhahdo arrinkaas. Waxa aad dhahayso waa in ay ahaadaan wax miisaaman. 5. Mar walba difaaca gelin. Wax walba ayaad la kulmaysaa. Noloshu waa casharo badan tahay, laakiin mar walba iska ilaali in aad difaac ku jirto. Tan waxaa ula jeedaa haddii lagu dulmiyo, ha isdhiibin oo ka falceli dulmiga. Ha aqbalin gardaro. Haddii aad difaac gasho, dadka kale ayaa u ogolaatay awood dheeri ah. 6. Ugu dambeyn, naftaada control. In aad is-xakamayso oo aad ahaato qof control leh waxay ku siinaysaa muhiimad gooni ah. Tan waxay kaa ilaalinaysaa in aad meeshii la arko ku dhacdo. Muhiimadda kale ee control-ku leeyahay waxa weeye in aadan gelin ama aadan qayb ka noqon wax aanan ku qusayn. haddaba intaas yuu ka egyahay mawduuceena. tan iyo muuqaalkiisa xiga inta ku kulmi doono waxaan iga tegayaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.